koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan dalkeen oo nebed dadkeen oo wanaagsan waldaneeyow dawli imbaahanaayne waldaneeyow dawli imbaahanaay war haddaad wanaag danaynaysid dalka dawladda waa ka jirtaaye maad wax la qabsatid war halka heesoo koonfur galbeed laga xasuusto way aamus durdura geel baa ku jabaye damaacina waa xun yahaye dalkuna waa lama huraan dantuna waa lama huraan war dagonka kanow dangaareetii dalka ka burburiyo hadal somaliland waa lama huraan waryay u tahay war midnimada Soomaaliya waa muqaddas malag ha ku dilo ma quraan ba weynaan daareemine dadka kii dhergow daran dulaal iyo malaal iyo dib u socodna waysaga heeskaagu ma huwa laakiin daal badan ka muuqday rafaad war inuu daladan baa ku kaliftayo dalkii baa dalaalay rogtay walaalaanay ciil baan bistay la aradu inta roogdi iil dhimadaas leey war cara ilaahay naguma dileen nadaaniyo ciilkaas wuxuu yahay waxa la duqeeyay degmada wada jir hoobiyaal baa lagu garaacay waxa ku dhintay dad shacab oo masaakiina 7 qofood oo qaar isku qoys yahay qaarna macallin iyo ardadiisa inuu dugsigoodii joogaan idaacadaan dhageysta dad wariyaasha kamid ah idaacadaha shaqeeya waxay leeyihiin xalana hoobiyaal lagu garaacay war dugsi quraanka iyo aqalka Soomaaliya lagu laad xalana war allahiin allah duuya dadna wax noo wari aqoon ha noo warinina waxaadna aqoon waradeena kuwaas oo wariyaal boojaajiya wariyaalka mayka aalay ino qoladii hegaha ay tahan war dirati meelaha ka dhiyaanin hubiyaa leeri xalangliya isku eran reed war xarakada shabaab ayaa sheegtay in xalana duqeeyeen laakiin xaafadda la duqeeyay xalana way u dhowdahay maandheesko waxaan la yaabanahay ilmahan bajaajka wado maxaa ka soo uray oo laga rabaa ilmaha qaar baa inta sameecado waa weyn shitaan ayaysan iska fiirin wadada oo aysan maqleen askarta warkeeda war qaarkood waxay u haystaan inay Mareykanka joogaan war askarta bersho may baan haysdaana bajaajlaha inoo isku dili karo lama qofood bayna warsadaan oo bajaajleedu ma qabiil laga adag yahay ba wiilan ayeeyo u ahay ayaa bajaaj u iibiyay anigoo ka baqaayo inuu iga taariibo maan dhaw taariibile bajaajkan wadaan iri haddaan maqlo nin bajaaj leeyaa la dilay wadnaha ayaa kor idhahay waa waganaca marka bajaaj leeyaa laga rabaa amniga in la sugo waa lagama maarmaan wadooyinkana waa in la adkeeyaa bajaajkii inoo sheegay lagama maarmaan waaya dhalinyaradana inoo nabadgalaana lagama maarmaan waay weliba muqaddas waay bajaajleyda waa laga maarmaan inay canshuurta bixiso dhalinyaro madluuna oo miisaaniyad laga qaado oo la sii makrinaayo miyaa bajaajleyda horta warka waa la caddeeyaa waradeena bajaajkan aa sheegaysaan Soomaaliland lagama yaqaano waxaa la yidhaha tugtug haddaan aragna mid meelaha muluqlana kalbolka ka siina caasimadda Hargeysana lagama ogolaadeen warnimayow waxaa la yiraahday magaalada Gaalkacyo shirkado ayaa ku soo batay war sidaan may baarayaan war shirkadaha waxaa kamid ah shirkad meydka haasta shirkadaasina shaqaalaheeda waxaa kamid ah dad xaafadaha iyo isbitaalada ku wareegaya oo suuqgeyn u sameynaya isbitaaladii xaafadaha booqdaanna dadka bukaanada ah heladooda ay heshiiska siixanayaan si markay dhintaan u aasaan waniyo reer Gaalkacyo meydka aasidiisa dhib ku ah war gaalka ay meedka ka badan ka aali dadkii iska dilaanayno la aas shirkadan kooyda ka aali laakiin meelil lay berbero aw adra yaab le waka dhii laha gabro godiya laari gabrigi uu soo godi lacag diisan tilan siina meedki lisheeni ma yaray meedku ma hagiliya waari intii anuga beesay liinsiin meedku maldhika waari warni aw seeka damaasan dalari ani ba jiifada waari gabrigi uu iska dadabi adar asagiyo meedka been isku aaso ayay haydba warnimo ayaantan ra'iisul wasaare cusbaa Itoobiya arrin weyn oo isbedel uu ka wadaa geeska Afrika isbedelka waxa kamid ah dawladda Soomaaliya dawladda Imaaraat ayuu dhexdhexaadinayaa baa leeyahay warni warmayside dawladaha Qatar iyo Imaaraadka maxkamadda Hague ay isku dacweeyeen war annaguba adan Somaliland nahay idinka abal ku dacweynina Hague anigu Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax anigu waa rumaystay warar oranayay madaxweynaha kililku noqonaya adan ma Cabdi Ilay ayaa la mustafriyay hadalka noodaas ka daan gurdarado shalay
xalay toole hadal uu jeediyo aan daawadana aad baan ugu qancay wuxuuna yidhi soomaalidu meel ay joogtaba waa dad ehela oo walaala ah war adeer annaga somaliland baana leedaha soomaaliyana waan ka goonay beri hore wareedha xarig kuu gooyaha nagu soo haraahirin ordnaga xariggii lay xidhayna aad bay uga xumaadeen dareen bay iigu hilisay buu yidhi iyadoon kala socon lahayn shakhsiyaad baana ka dembeeyey xariggayga war qalbidhaga waxa uu ka hadlay waa oromada iyo soomaalida isdilayay ayaan hore waxa uuna yidhi soomaalidu iyo oromada waa dad walaalo ah ee waa la isku dirayaa waana inay heshiiyaan oo aysan mar dambe diririn buu yidhi warnimayo waxba ma kala ogidine ra'iisul wasaaraha Itoobiya waa nin oromo ah oo oromo mitiya war dad nool mahayna gabar boombale oo safiila araasa Sacuudiga dhalasho siyahayti tan la handiri ra'iisul wasaaraha usub ee Abiy Ahmed booqashi wadamo badan ka mar doonta waana boombale robot baa la yiraahdaa robot yaleeyin war Soomaaliya ma soo gaaraysa war wala boombale oo aan helay shal furfurtaan la qabsade war safiya hooyaday baa la yiraahdaa boombelana kuma sheegi kartid walaageeda yartib walka eri man lesko yaa ii wacay oo safiya raba qof kale waa kuma ayay waa lagu soo doontay waa lagu ardaa fadhiyaa in lagu bixiyaa la rabo war dawladda Sacuudiga war fiican ka soo yeeraa la yiri nimayo xoolihii Soomaalida loo iibgeenayaa la yiri war adeer hore uga dhoofin jirnay berbera xoolihii Somaliland ayantii imaaraadka iyo ilma aala Sacuud arinteena xumaatay arigii Turkigu iibsan waayay miyay hadda qaatay war gobolka Hiiraan gudoomiye may baaray madaxda inoo haafado guri indegan waari magaalada beledweyne war kuwa Muqdisho joogaaba haday degmooyinka madaxdu ku faafaan nabad ay noqon lahayd war ya guriyaan oo gaalo waayaan war beledweyne dhagaxay miyaa war ninkii qaramada midoobe Soomaaliya wakiilka uga ahay Michael Keating wuxuu yiri dawladda Soomaaliya horumar balaaran bay gaartay war Michael Keating nabadii nolol ku biirmiya kurburoogaas leeyin war gabre xilkii baa laga qaaday markaas xaligna waliba loogu daray Somaliland miyuu joogay warnamaya oo filmankan Hindiga isku dhaafa iyo halkan koreebada wadan Hindiga kamid ee may ka dhiiday goos oo tumani qofood ka kooban ya may laaray hadag haliin goos ka dhalmiyeen jalcalo he kan kihir tumi qofood daraf Hindiga hal koreebado iyo halka war 12 inay dabaq iska laalaadeen baa la sheegay ma waa laayeen wuxuu maxay ahayd war meydkooda waa lagu baahindida ma taqaaniin saasa 20 iska dilooha ma aha adeer war ma haysidee Soomaalidu meesha ku dhalato kuma dhimato war Sacuudiga ku jiraan meed ula jeedaa war masaafur ma harsado waa socotaba war tahriib ay ku tageeniyo dhalasho kala gaadadeena war adiga Sacuudiga aadaan meel kale ma taqaanaa orda ani koonfur Afrika intil ma masmiya nyaanyaw koonfur Afrika mid oo hirin ma ku dhac أنا أبصم كذا على سنة